balse aan wax badan uga ogaano saxiixayaashaas iyo madaxdan cusub ee kusoo biiraysa wadahadalka doorashooyinka 2020 waxa ay ka bedeli karayso haddii laysku wada yimaadase waxa soo kordhaya ama hore loogu dhaqaaqi karayo waxaa qadka skype-ka dalka Yurub ku jira Dr. Aadan Maxamed Gaadaale siyaasi Soomaaliyeed oo ahna falanqeeye Dr. Gaadaale marka hore soo dhawow marka xiga maxay ka bedeli karayaan ayaad isleedahay haddii ay ku soo biiraan madaxda Jubbaland iyo Puntland magaalada Muqdisho dhamaystirka la doonayo in hore loogu dhaqaaqo doorashooyinka 2020-2021 su'aal waa mahadsantahay waana u shukriyeeyaa National TV telefishinka qaranka Soomaaliyeed iyo kadalika sidoo kale waxaan u shukriyeeyaa raadraac iyo adigaba iyo dhammaan dadka technicalka oo shaqada gacanta ku haya waxaan ugu ku leexanayaa qadiyada su'aashaadii weydiisay waxa ay keeni kartaa ama waxay ka bedelayaan wax kale ma aha arintii unbay waxay u tahay dhamaystir iyo qurxin iyo muwaafaqo iyo isfaham bay keenaysaa si aniga ila tahay iyo sida la yirina waxa ka muuqata warbixintoodii ay sameeyeen ama press release-ka ay sii daayeen sidaas oo ku aadanaa waa inaanu u turnaa dalka iyo dadka danaha la wada gaaraa waxa aad lagu celceliyaa waqti xoogaa ereyada dadka baqdin galiya baa jira oo ay ka mid tahay waqti kala guura baa lagu jira waxaan aad uga helay inuu madaxweynuhu hadda ka hor dhusama reeb ka yiri kala guur ma aha waana runow iyo waa dawlad cusboonaysiin waxa la gelaya oo dawladii hore baa waqtigeedii dhamaaday dawlad cusub baa la bilaabaya ama tan joogta ha ku soo noqoto ama mid kale ha timaade marka horta la kala guuri maayo la kala tagi maayo ereyga in la bedelaa jeclaan lahaa arrinta ay nimankan soo kordhinayaan madaxdaahina waxa weeye arrintii ay markii hore ka maqnaayeen bay waxay ballan qaadeen inay hadda qayb ka noqonayaan qaacido waxaa dalka u degan oo hadda la sameeyey oo la isla wada waafaqo la yiraahdo isla ogol ama isla ogol waxa tirahdaba dheh macnaheedu waxa weeye dadkii oo dhan oo yiraahdo gacmaha u wada taaga waa waafaqnay marka sida muuqata taas baa iman doonta waxayna u iman doontaa dadkii hore oo barnaamijka ka qayb qaatana way ku dhan yihiin qoladan cusub oo markii hore ka maqnaydna way ku dhan yihiin in xamar lagu qabtayna waa calaamad kale oo tusaysa in aad la isugu soo dhawaaday maxaa yeelay markii hore arrintaas waa laga biyadiidsanaa dadka qaarkood sababtii keentay in gobolada kale lagu qabtana taasay ahayd madaxweynuhuna waa kii waafaqay isaguna inuu garow ugu tago aad buu ugu mahadsan yahay arrintaas ayaguna inay xamar yiraahdeen waa imanaynaa aad bay ugu mahadsan yihiin marka intaasun baan oran lahaa muwaafaqo fiican baan anagu filaynaa haddii la isku wada yimaado oo madaxdan hore uga maqnaa madasha shirkii dhuusamareeb ay ka bedeli karaysaa baad isleedahay qodobadii heshiiskii doorashada lagu iclaamiyey ee dhuusamareeb ka soo baxay wax way ka bedeli kartaa laakiin anigu waxaan leeyahay number 1 waxa ah dadka inay horta naftooda u heshiiyaan barnaamijka hadda ka horna waan hadalkaas waan irid qodobka koobaad iyadoo aan dadku aad isu dhexgelin oo aad la isu calool furmin waxa qorani ma yeeshaan muwaafaqo fiican xataa haddii la isla waafaqo hadhowto waa madmadow bay yeelanaysaa marka aniga waxaan aad ugu celcelinayaa oon hoosta ka xariiqaya oo aan leeyahay madaxda oo dhan madaxweynaha federaalka madaxweynayaasha dawlad goboleedyada ama dawladaha xubnaha ka ah oo dhan dawladaha xubnaha ka ah dhexdooda iyo iyaga iyo madaxda federaalka dhammaan waa inay heshiiyaan oo caloosha isu xaaraan oo la iscafiyaa oo la is ogolaadaa markaa kadib bugaagta hal la furo waxaan hubaa iyada oo la is saamaxay oo la is ogolaaday haddii bugaagta la furo wax walba qofnaba fiirin maayo tii hore inagu filan wixii laga bedelaana wax weyn noqon maayaan qofkii siyaada keenana hadday macquul tahay waa lala waafaqaya haddii aysan keenin oo yiraahdaan tiini horaan waafaqsanahana waa wax aad u dhici karta laakiin waxay taasi ku dhacaysaa in marka hore la dhex dhigo wanaag waana meeshii anigu aan ka irid diyaar dad in loo sameeyaa hadday iyagu dhexdooda ka heshiinayaanna waa okay haddii kalena dad isu calool xaara oo u kala dabqaada sida ugu macaan u dhex dhiga wanaag waa in loo sameeyaa arrintu waxay ka qormaysaa asal u ah in dadka wanaag la dhex dhigo mar haddii wanaaggaas yimaado hawsha inta kale oo dhan waa aad iyo aad bay simple u tahay ama u fududahay waana midda aan filayo waxaad ogaataan dadkeena Soomaalida oo aan rabaa inaan
sheego adduunka innaga qiso aad u yaab leh waan maalin dhaweyd dhageystay oo ambassadorkeena United Nationska inoo fadhiya ayaa wuxuu ka hadlay dawladaha federalismka maadaama aanu qaadanay in aanu dawladihii hore federaalka u ahaa oo howlaha ugu fiicnaa aanu tala weydiisano dalka Canada oo anigu hadda joogo oo ku caan baxay federalismada waliba midda ugu macquulsan oo tan Mareykanka aan ahayn kuwa maxaan ku iraahdaa India oo kalena aan ahayn midda aad ugu macquulsana oo dawlad goboleedyaduna ay leeyihiin power aad u fiican dawladda federaalkuna ilaa iyo qodobo afar aan loogu tagin sida lacagta iyo foreign policy-ga ama arrimaha dibadda iyo maxaan ku iraahdaa natural resources-ka wadanka khayraadka ku jira oo dhan mas'uuliyadiisa iyo isu qaybinteeda aan loogu tagin iyo maxaan ku iraahdaa arrimaha dibaddana iyagu iska leeyihiin marka ambassadorkii baan weydiinay buu yiri bal noo sheega wixii sida aanu ku habayno wuxuu yiri saddex su'aalood buu noo weydiiyay su'aasha koobaad wuxuu yiri meeqa luqadood baa dalkiina lagaga hadlaa markaasaan waxaanu ku nirwiyaa hal luqad markaas wuxuu yiri meeqa diimood baa kala haysatiin markaasaan waxaanu niri hal diin markaas wuxuu yiri meeqa nation meeqa wadan baa tiino isu tagay markaan waxaanu niri waa hal dal intuu afka qabsado yaabay wuxuu yiri oo marka federalismka maxaa ku samaynaysaan ila federalismka saddexdaas arrimood dad leh baa la isu keenaa wuxuu yiri wallahi waa su'aal nagu culus laakiin waa iska qaadanay kullayba waxaan ula jeedaa waxyaabo badan oo aynu aad u waaweynayna inagu dadkeedii ma nihin Canada waa run waaye 196 luqadood oo rasmi oo waaweyn oo Chinese ku jiro oo Indian ku jiro oo Punjabi ku jiro oo maxaan ku iraahdaa intaas oo European ku jiro bay ku wada hadlaan waxaana official ah English iyo Faransiis war inagu hal luqad baynu leenahay 196 luqadood dad ku hadla ba federalism degsaday waxay haystaan wax ka badan 500 oo diimood oo rasmi oo aan la isu geyn karin bay leeyihiin waxay leeyihiin natural resources adduunka oo dhan qaaradda adduunka waa qaarad weeye Canada ee ma aha dal ma aha waa dalka labaad ee adduunka marka Ruushka laga reebo marka inagu waxaynu nahay isku diin isku dal isku reer isku qoys isku xidid isku qaraabo isku shay baana maxaa loolaya maalin walba waxba la heshiisinaya waxba ina kama dhaxeeyaan waa adoo yiri nin iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo qoyskooda la heshiisinaya hadday maalin isku xagaanaaqaan maalinta dambe waa isxabiib bay isu yihiin marka anigu waxaan qabaa arrintan inaysan dhib lahayn haddayna inagu dhib siinayn Soomaaliya laba qodob baa xoogaa dhib yari taagan yahay waana la sixi karaa labada qodob mid waa qabiilkana waynu ka badbadinay waligii waa jiri jiray wax haddayna ku cusub ma aha laakiin dad dan kuwa taba aad noogu wareeriyay waxa la gaarsiiyay qisa waxaan ku sheegayaa waliba wuxuu galay qabiilkii dadka madaxda u ahaa wuxuu galay madaxdii dawladda dhinac ama gobol ha noqoto ama federaal ha noqoto ama waxbarasho ha noqoto ama wasaarad ha noqoto madaxdii buu galay wuxuu kaloo galay culamaa u diinkii wuxuu kaloo galay dadkii maalqabeenka ahaa laba qisaan idiin sheegaya dadka maalqabeenka ahi waa dadka hadday dalka hogaaminayaanna wax walba qurxin kara hadday xumaynayaanna waa dadka fasaadka ugu badan dawladdii hore kacaanka hees la sameeyay oo aad u jeclaaba waxa ahayd waynaan dareemine dadka kii dhergow daran maxaan ku iraahdaa dilaal iyo malaal iyo dibi socodna way isaga marka waxa dhabta ahi waxa weeye dadka maalqabeenka iyo madaxda ahi waa dadka haddaysan wanaagsaneyn adduunka oo dhan fasaahadinaya oo mujtamaca kharribaya dadka culimada ah qisadii iyo la qosolka badnayd waxay ahayd laba wadaad oo laba qabiil ka kala socda ayaa qof xanuunsanayo jinni hayo quraan ku akhriyay markaasaa jinnigii qayliyay wadaadadii mid kamid ah wuxuu yiri wariyaa adigu qabiilkee tahay markaasuu wuxuu yiri waxaan ahay qabiil hebel oo labadii wadaad quraanka ku akhrinaya mid kamid ah markaasuu wakada quraanka isku qabiil baan nahay kada reerkaydii weeye war bani Soomaali baan ogeyn inay dad baan ogeyn inay isku qabiil noqdaane hatta jinnigana ma qabiilku gala war anaga qabiilkayagu jinni iyo insiba waleeyay quraanta ma lagu akhrin maayo haddaba wadaadadeeniina waa kuwa madaxdeeniina waa kuwa inaga dib qabnee wadanka dib male diini iskuma hayno dal iskuma hayno midab iskuma hayno wax aynu isku hayno ma lehe
you need you guys to correct yourself gadaal inaan isugu soo noqon u baahanno niraano war qaladku waa inaga simply doctor aadan waa mahadsan tahay maadaama hadda waqtigu uu aad u kulaalayo waqtiga la qorsheynayo doorashooyinka in la hirgeliyo 2020 bal ka waran arrimahan dib u heshiisiinta iyo dib isku aragga iyo ma isleedahay waqtiga dib u dhac ayuu keeni karayaa intii wada hadal qaab lagu heshiiyo doorashada loo iclaaminayo in waqtigiina dhammaanayo oo xaaladii ay sii cakirmayso waa su'aal wanaagsan walaale su'aasha jawaabteedu waxay tahay horta waqtigu mushkilad ma aha waxa mushkilada dadku inay iswaafaqaan waxaan kale ku sheegayaa waqtiga lagu bixiyo in la iswaafaqo oo la heshiiyo oo waxaan meel la iskala dhigo waqti dhumay ma aha ee waa waqtigii faa'iidada ahaa loo baahnaa صحيح والله بهنا وقتك هذا كهر إن لقبته أو وحنا هذا هركر لسيد دياريو لكن وحكاتك هاي لما يرى هذا كسو جذب هذا ما أنت إنه جوجنا ما أنت إنه جوجنا مركب وقتك إنه هاي السنة إنه مركب وجوه الرجال وح وجوه قيمة بدن وقت إنه إسوافقنا ضدك دحيل هذا وناق لقدقه واحد كلا أوقاتها هدي ما أنت أسبوعا إنه كجر الله وضع ما يهوش على الربا أردن وقتي ولي وقتي با لقادن دونا u baahan doona hadii aynu inagu warka sii badino oo qoloba maalin farba mayr la tiraahdana horta dadkii lahaa waqti baa naga dhumayo idinka waqtiga dhuminaya taa ina ogaataan waay hadii la yiraahdo tan ma aqbalin oo yaa loo raadiya oo maalin walba horta waqti waa dhumaya waxaan kaloo idin leeyahay haday qabsan waqtigu waa sii dhamaanaya waxaad kaloo ogaataan waan rabaa inaan aad ugu celceliyo si fiican loo fahmo oo dawladaha xubnaha ka ah federaalka ay fahmaan dawladda federaalku ay fahamto ay fahmaan dadka kale oo stakeholders ka ah oo qaybta ka ah ama ha noqoto mucaaradka horta waqti baa ku darsami doona waqtiga la og yahay ma sanad buu noqon doona ma ka badan doona ma ka yaraan doona waxaana xadidaya shaqada taalla iyo sida loo wado xataa haddii hadda maanta la iswaafaqo waxaan jecel dadku inay waa inagu aan isyeelayn war dadka barnaamijka laga hadlayo hadda oo la leeyahay waa in xisbiyaal ay wax lagu soo doortaa oo waa in qofkii ay doorataa 301 qof ay doorataa oo waa in yani maxaan ku raahdaa gobolada oo dhan ay tagaan oo ay ka shaqeeyaan guddiga madaxa bannaan oo doorashooyinka loo xil saaray barnaamijka sidaas ah oo gobol oo state walba 4 meelood oo kala duwan lagu qaadayo waxaasi waxa weeyaan waqti iyo diyaarin bay u baahan tahay meelihii lagu geli lahaa baa diyaarin u baahan dadkii loo diyaarin lahaa baa diyaarin u baahan ummadda intaa tiro leeg 301 qof in meel walba xildhibaan kasta loo soo xulo baa diyaarin u baahan horta inaan fahamsanahay weeye hawshaani hadda sida ay u qoran tahay waqti bay u baahan tahay marka waqtiga ay u baahan tahay ma aha in madaxdii waqti ku darsatay waxa la yiraahdaa waqti farsamo weeye taa inaan fahamsanahay weeye ma dawladii oo leh sanad baan ku darsanay ama 2 sano ku darsanay ma aha ee waa farsamo hadday 6 bilood ku dhamaato iyo hadday sanad ku dhamaato iyo hadday ka yaraato intaba farsamo u taalla weeye ee horta cudurkan ah waxbaa lagu darsadayda hadduusan si fool xun u muuqan oo qofku uusan lahayn anaa intaa ku darsaday aan fahamno inaysan ahayn jirta oo aynaan waqti iskaga dhumin waxaan kaloo ku khatimayaa arrinta waqti ku darsada fulayow guuli ku dhaweyda anigu waxaan qabaa arrintii ahayd qof iyo cod waqtigeedii oo ahayd inay Juulaayda soo socoto sanadka dambe ay gaari doonto iyadoo hadda qof iyo aan cod ahayn baa la gaari doonaa waan ka xumahay arrinta dadka hadda u sii sheego laakiin runtu lagama maarmaan weeye horta waa la gaari doonaa qof iyo codkiina ma idan qaadan haddaba macnaheedu waxa weeye innagaa taa isku keennay canaanse ma leh oo waxaynan hadda isku canaananayn waxa aynu isku waafaqnay inagoo caafimaada aan wada qaadanno rajo aad u weyna waxaan ka qabaa inaan sida hadda iiga muuqatay codka dawladaha xubnaha ka ah shirka markii hore ka maqnaa hadalkooda sida iiga muuqatay iyo madaxweynaha dawladda federaalka hadalkiisa sida iiga muuqatay in marka la isugu yimaado aeroboortka intii la ismucaanaqeeyo la oran doono horta maxaynu isku haynay wallahi garan maayo waxaynu isku haynay dee naga dhameeya bahasho saxiix oo warqadaha qora in la oran doono
of course to waayahay laakiin saasaan Dr. Gadaale waa mahadsantahay maxaa hor yaalla marka mar haddii la isku yimaado madaxda is arkaysa kulmaysa ee shirka uu u dhaxeeyo maxaa hor yaalla oo la doonayaa in ay si gaara diiradda u saaraan oo aad isleedahay waa lama huraan anigu fahamkayga waxaan isiri markaan akhriyey labada dhinacba markaan akhriyey waxaan isir 4 qodob baa ay dhici kartaa inay wax ka yimaadaan laakiin afar laga heshiin karo oo aan xataa gadaal loogu noqon karin waay midi waa guddiga doorashooyinka waa qodob dhici kara midina waa tirada dadka codaynaya oo 301 ah waa dhici kartaa in wax laga yiraahdo midina waa dhici kartaa waa saddexaad waxa weeye axsaab ma ka qayb geli karaan mise maya in wax laga yiraahdo dadku ay su'aal iska weydiiyaan waa wax yada dhici kara ma suuroobi kartaa dowlad goboleed kasta 4 meelood inay qabato iyadoo la eegayo ammaanka iyo say kala yihiin iyo duruufaheeda mase qaar baa 4 meelood ku qaban kara qaar baa 3 ku qaban kara qaar baa 2 ku qaban kara qaar baa magaalo kaliya haysto oo halka magaalo kaliya ammaankooda sugi kara marka waa arrimo technical waxaas oo fiirso ma aha wax laga doodo oo dood laga rido waa wax la fiiriyo oo guddiga doorashooyinka iyo ay qiimeeyaan maxaa laga yeeli karaa marka arrimo laga doodo oo culays laga dhigo maaha intaa waxaan ahayn oo soo bixi karaa ma jiraan waayahay afarta qodob baa soo bixi kara afartana waa la daweyn karaa waayahay seebaa looga gudbi karaa marka danaha shakhsiga ah ee markasta dib u dhaca keenaya ama mid kasta uu doonayo in fariiray bukootay dib daawo loogu raadiyo looguna gudbi karaa dan guud iyo qarankan oo hore uga dhaqaaqa halka maanta uu joogo gacantana la iswada qabsado horta waxaan jeclaan lahaa inaan dadka madaxda ah hal qodob oo ay ku farxaan aan iraahdo waxa weeye anigu waxaan rumaysnahay dadka madaxda noqday hala kala dadaal badnaado laakiin dhammaantood dowladda federaal iyo kuwa xubnaha ka aba horta inay wanaag raadinayaan baan rumaysnahay waxaana jeclahay dadka Soomaaliyeed inaynu dadka tusno madaxda ah inaynu u ogol lahay positive-ka ama wanaagga ay leeyihiin inaynu ogol lahay hadda ka hor baan waxaan ku irid tusaale aan keenay dad ay ugu qosleen oo madax carabta waxaan ku irid waxaan tusaale u soo qaatay dalka Sacuudiga iyo dalka Soomaaliya Sacuudigu madaxdooda masaajidda iyo meelaha la isugu yimaado inta waa u duceeyaan ilaahu madaxdeena hagaaji ilaahu caynka u yeel ilaahu cimrigooda dheere dawladoodii waa u deganaatay oo macaanaatay innaga shacabkeenu kii yimaadaba waxay yiraahdaan ilaahu daaqada ka tuur ilaahu kana dhaafi ilaahu kana qisada marka tusaale aan ku sheegayo ugu qosolka badan oo raacay wuxuu ahaa sanadkii 88 ayaan magaalada Toronto la yiraahdo Canada waxaan kula kulmay nin Maxamed Siyaad Barre aad u neceb markaasuu wuxuu leeyahay ilaahu kana dhaafi markaas waxaan ku yiri waxa ku dartaa ilaahu mid ka wanaagsan noogu bedel markaasuu yiri mid ka xumiba ma jiro ilaahay ma abuurin aad baan uga naxay waa iska aamus Siyaad Barre waa dhacay ninkii oo maalintii dama habaaramaya baan arkay markaasaan yiri maantana yaa miiska saaran markaasuu yiri aydiid ilaahu kana dhaafi ilaahu kana dhaafi ilaahu kana dhaafi markaasaan waxaan ku yiri ilaahu mid ka wanaagsan noogu bedel dheh markaasuu yiri kan wax ilaahay ka xunba ma abuurin waxaan ku yiri haddaba cudur baa qabtaa horta kow ilaahay baa challenge u sameynaysa ilaahay isaga ka og wixii xun iyo waxaan xumayn laba dulqaadnimo xuma baa ku hayso oo xataa waxaadan ogolayn inaad tiraahdo ama kan allow noo wanaaji ama wax ka wanaagsan noogu bedel dadka Soomaalida cudurkaasay qabaan qofku markuu xanaaqaba wuxuu oranayaa kan wax ka xumi ma jiro oo qofka wanaagiisa baa la iloobaya anigu waxaan qabaa dadka Soomaalida oo madaxda ah wax badan oo wanaaga bay qabteen waxaad ka soo qaadaa Maxamed Siyaad Barre ka soo qaad hal tusaale danika loogu neceb yahay weeyo oo wax badan laga sheegay oo waliba haday cid neceb tahay aniga qoyska aan ka ay nabcaayeen oo wax ka sheegi jireen oo yiraahdeen waana dhibay oo caynka waxaan idin sheegayaa Soomaaliya wax qorid la'aantu waxay ka qoraydo United Nations noo qoraa 5% baa wax qori karay markuu xukun qabsaday ololihii Soomaaliyeynta waxa la gaarsiiyay 5% dadka Soomaaliyeed inay wax qoraan waxna akhriyaan haddaba waa wax hadii billions adduunka United Nations ay ku bixiso aysan keeni kareen ninkaasaa sameeyay waa hal tusaale mana rabo inaan ammaano baanan rabin inaan wax ka sheego baanan rabin laakiin waxaan rabaa qof walba waxbuu qabtay inta wanaagsan maxaynu u sheegi la'aanahay xumaanta kaliya dabka u saarayna marka dadka madaxda waxaan oran lahaa horta ku bishaaraysta waxbaad qabateen
marka waxaad isweydiinaysaan maxaa naloo diidan yahay waxaa la idiin diidan yahay tusaale aan ku khatimayo nin baa madax ahaa hadda ka hor dadkii Soomaaliyada inaga horreeyay markaasaa maalin walba qolaa ku kacsan maalin madax odayaasha ku kacsan iyo nabadoonnada iyo duubabka maalin haweenka ku kacsan maalin dhalinyarada ku kacsan maalin culamaa diinka ku kacsan ninkii wuxuu waayay cid uu raali geliyo maalintii dambe intuu isu keenay wuxuu yiri walaalayaalow madaxtinimadii anigu waa ku fashilmay waa hayn kari waayay wax kastoo aan isku dayana waxba kama soo bixin maanta banaanka iga taallaya iga qabsada nin xakiima oo aad xakiim ah baa intuu ku qoslay wuxuu yiri walaalle ma maqashay geedaha geedka ugu harka weyn oo lagu soo hirto shimbir xaarkeeda ku yaal raggana ninka u geesisan waxa ku taala cidid doqon baa ku taala doqon xagati cidideesa ku taala marka wuxuu yiri ninka fiican ma leh noo wad xukunka marka waxa laga wadaa ninka ragga ugu fiican doqon baa cideeyna soo jeexjeexaysa geedka ugu weyn oo la wada harsadana shimbir baa intay timaado ku xaarayso oo aan karaamaynayn marka dadka madaxda horta waxbaad qabateen ee calool xumada iska daaya idinkuna ha isnicinina dalka wixii dan u aqabta baan leeyahay dadka shacabka Soomaalidana waxaan leeyahay ha ka badbadinaan dhibkooda isu keena afarta qodob baa dhici kara waxaan leeyahay haddaba waa idin sii sheegaya dawlad goboleeda waa idin sii sheegay waxaan leeyahay walaalayaal iska laqa afarta xataa wixii ka suuroobi kara hadda miiska soo saartaan oo la idin la gartana waa khayr laakiin waxaan idinku amaanaya sidaad xamar u aqbasheen iyo statementka soo saarteen waxa ku dartaan waxa miiska yaalay oo hore loo gaaray inaad tiraahdaan waa idin la waafaqay oo aanu saxiixno wax inta wixii ka badani waa inaan iraahno caalamka noo imaada waa inaan isboohino waa inaan banaan isdhigno waxaan ceebahayna inoo kordhin mayso aniga waa ila tahay inay arintu bisishahay meel fiican bayna taala mucaaradka waxaan leeyahay hal shay baan leeyahay dadka mucaaradka ah waxaan leeyahay walaalayaal mucaaradku waa wax siyaasadda waa wax loo baahan yahay macnaha uu leeyahayna waa hal shay macnaha loo baahan yahay waxay tahay wixii qalloocan in la ifiyo dantuna ay tahay qallooca in la joojiyo laakiin maaha qofka inaa ceebaynaysa ama nacayb tahay oo wax alla wuxuu keenaba aad nacaysid dawladuna mucaaradka markay aragto inay wax qalad oo ay leeyahay dabka ku ifiso inay ka noqoto weeyo oo saxdo wixii maaha inay yiraahdo awalba mucaarad baa idin waxba idin banaan waxba nama yeeli jirin waxba la idin kama qaadan jirin maaha waa in la waafaqo oo la yiraahdo waadna saxdeen waanu ku qaldanayn arrinka isaga ah raali ahaada hadda ka hor kadibna nooga diga idinkuna wax waliba ima cunnamaan aan joojin haddaan inta isla helo dawladda adduunka ugu fiican baa noo soo socota waana arki doontaan Soomaaliyana speed waxay ku socotaa dadku hadda aysan ogeyn oo layna cawriyaayo oo 20 milyan oo Soomaaliya ay dhaafi doonaan 54 dawladood ee Afrika ka tirsan aynu kulli dhaafi doono cilmi ku dhaafayno xoga ku dhaafayno tacliim ku dhaafayno wax soo saar ku dhaafi doono laakiin meelaha aan sheego ceebaha ah inta aan iska xirxiro waa ka baxay santahay Dr. Aadan Maxamed Gaadaale qadka Skype-ka ayuu dalka Yurub barnaamijka raadraac uga qayb galayay oo falanqeeye nagala hadlayay xaaladda siyaasadeed ee dalka uu marayo iyo talooyinka ku aadan qaabka ugu habboon ee maraaxisha looga gudbi karo arrimaha diyaarinta arrimaha doorashooyinka 2020-2021